annagoo gudanayno waajibaadkeenna dastuuriga ah ee la xisaabtanka xukuumadda sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle qodobka 34 xarafkiisa ma iyo xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka qodobka 2 farqadiisa 6 si aan wasiirka u weydiino su'aalo ku saabsan shaqadiisa wax dhibna ma loo wicino asoo la weydiinayo shaqooyinkii iyo shaqadu gudanayay qofka waxa la rabaa markii la shaqaalaysiiyo wixii shaqaalanimada loo diray inuu qabtay in kale in la weydiiyo lacagta soo gasho hadda ee bilaa sharciga lagu qaado ee aan baarlamaanka la marinin cidda bixiso iyo meesha ay ku baxdo shuruucdii miisaaniyadda inaad keento waxa ka hor istaagan inaad noo sheegto lacagta noogu imaado dawladda federaalka cidda noo soo qaado iyo sifada lagu soo qaado Hirshabeelle waa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe wuxuu sheegay lacagtii Hiiraan in la mideeyay ilaa hadda ma sheegin muxuu ahaa lacagii ka soo galay Shabeellada Dhexe sababta loo mideyn lahayaa ma sheegin waxa jirta lacag 1 milyan ah oo xukuumadda dhexe inta soo gaadhay waa horumarin iyo dhinaca amniga lacagtaas hadda maalinkii wasaaradda maaliyadda haya mise waxay ku jirtaa inaan ku habboonayn maxaa diiday in labadooda ka dhameeyo wasaaradda maaliyadda ay qoondeyso madaxweynaha bilaa qarashka oo baxayo gudoomiyaha gobolka qarashka oo baxayo ama annaga aan baas gareynin sharci ogolaana in cashuuraadka la qaadiyo qaabka lagu qaado lahaay 4 biloodna waa shaqadaas way socotaa si degdeg in gud loo saaro howshaas ilaa sharci laga helayo in la joojiyo xagee laga marayaa qodobka 61 farqadiisa 6 ee sheegayso in golaha guddigaasi shaqaalaha rayidka ah aan la asaasi karin iyadoo aan la helin xeer gaar ah oo qeexaya awoodahooda shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee hadda wado ee diyaaradana la saarnaa qaabka ay ku soo baxeen waxaan jeclaan lahayn in dhammaan deegaanada Hirshabeelle dadka deegaan ay si sax ay ma awood qoys in ay wada noqdaan si sax qof walba iska dhacay waxaan cadeynayaa dad aan u dhalan Hirshabeelle in ay ka shaqeeyaan Hirshabeelle waxaan jeclaan lahaa guddi baarlamaan oo maaliyadda ka mid yihiin in loo saaro la soo baaro waxyaalaha madaxweynuhu soo aray guddigaas aan u dhiibno ay ka mid tahay lacagta hadda uu sheegay wasiirka uu leeyahay executive price looma sheegayo intaasaan haynaa bilka maalin kasta cid looma sheegayo xabsiyada lacag si ay waxaan ku soo aray ilaa ka imaanayso maxaa hor taagan in miisaanid degan aan la timaado maxaan haysanaa waa lagu celceliyay hadda adduunka ku jira la ogaado marka ay gudbiyaan hal mar la wada keeno miisaaniyadaas sida sharciga ah la wada ansixiyo wasiir adoo wasiirada kalena insha Allah waan sheegi doonaa in lagu ciddii shaqo qoraysan si qof walba aqoontiisa iyo balansiga loo ilaaliyo waa in lagu xayisiyaa media ay leedahay maxaa Hirshabeelle ee ku yaal shaqaalaha Hirshabeelle ka shaqeeya arrintaas arrin xasaasi noqotay diina waa laga wada hadlay oo heeradaha wada shaqeeyaan arrimahaas annaga waxay yiraahdeen Puntland dalka ayaa shaqada dadka siinaysa Soomaaliya waana la soo raacay dad soo raacday abuurjuwa bas oo guud arrinta cashuuraadka aniga leeyahay waxaan halkan markii jaadka lagu cashuuro gobolka ayaa qaata arrimihiisa ugu dabaraa ayaa muddada ugu yiri hada Shabeellada Dhexe maxaa haysta wixii aan haysta kulliga wada ognahay waxaan haysta sharci la'aanta waxaan haysta aqoon la'aanta waxaan haysta iska warqabid la'aanta arrimaha shaqaalaha waa ka hadalnay waxaan soo marin guddiga shaqaalaha waa la soo dejinayaa guddiga shaqaalaha sheegaya wuxuu leeyahay intaasoo jagaal loo baahan yahay